xaaladda ka jirta maanta laascaanood. Gumaystihii Ingiriisku wuxuu yimi 1880 xeebaha bari iyo waqooyi. Wuxuu yimi 1882 Berbera. Wuxuu heshiis la galay qolyihii Saaq ahaa ee xeebta deganaa. wuxuu mar kale yimi Laasqoray 1884. wuxuu la galay heshiis Warsangeliga. 70 oday baa ka shiray inay Talyaaniga raacaan ama Ingiriiska raacaan. waxay doorteen Ingiriiskii oo ahaa quwaddii ugu weynaa adduunka xilligaas inay wax la qaybsadaan. heshiisyada la galeen 25 qodob buu ka koobnaa. inaanu isleefis ka qaadi karin baa ku jirtay. inuu xuduudahooda ilaaliyo baa ku jirtay. in maaragtay cid kale aan u soo gacan dhaafin deegaanka ayaa ku jirtay. heshiiskaas wuxuu dhammaaday 1960kii. intaa ka bacdi waxay xaq markale u yihiin Warsangeligu inay doortaan cidda ay taxaaluf la samaynayaan ama meesha ay doonayaan inay raacaan. gobolka Sool sayidka gacanta ku hayay. xilligii isaaqu dagaalamayeen dad badan oo Soomaaliyeed baa isaaqa u hiiliyey oo u arkayay dad deegaanadooda doonaya inay hogaamiyaan. laakiin wixii ay diidayeen maanta inay dadku sameeyaan oo xasuuqaan caruurta iyo maatada oo magaalada dumiyaan wax loo dul qaadan karo maaha baan leeyahay. waxaan ku waaninayaa nimankaasi inay caqligu u shaqeeyo oo ay waxa ka waantoobaan oo deegaanadooda ay ku noqdaan. gobolkaas oo loo ogolaado aayihiisa iyo waxa uu isagu doonayo. Puntland xil gaar ka saaran. ummadda Soomaaliyeed xaqa taqaana xil baa ka saaran. dadka maatada ee la leynayo ee la barakicinayo qof kasta oo Soomaaliya oo wadaniya oo islaam xil baa ka saaran iyo caalamkaba waan u sheegaynaa. waa in gobolka loo ogolaado waxa ay rabaan iyo deegaanada waqooyi bari. maadaama aduu golay xukuumadda aad lagala joogtid runtii aad iyo aad ba arrinta hadda Iimaan uu sheegay ay walwal iyo waxay noogu haysaa culays. dad masaakiin oo waxba galabsan oo wax dhiba aan geysanin in lala dhaco shilka iyo suug xukuumaddii aad ka tirsanayd annagu waa ku dhaliilaynaa arrintaas waxba qarin mayno waa ku dhaliilaynaa. horey baan tii ka horreysayna u dhaliilay laakiin anigu waxaan islahayn xoogaa tan tii hore waaba dhaamaysaa haddaydan midaan wax ka qaban maantana runtii waxay noqonaysaa arrin ceebteedii foolxumadeeda leh. marka xukuumaddaadii annaga dhaliishaas waad nooga geynaysaa. arrinta hadda Iimaan aad uga hadlay oo ku saabsan dulmiga meesha ka socda. anigu hadda maanta haddii dhulbahanta waxa isaaq dhulbahanta ku samayn lahaa wallaahi billaahi meesha hadda ka jooga inaanan dhulbahanta aqbaleen oo ogolaadeen inay isaaq waxa ku sameeyaan. hadda dhegeyso marka inaan raalli ka noqdo marka inay waxa iyagu sameeyaan ama raalli laga noqdaa waa damiir xumo waay. marka taa waxaan ku soo koobayaa walaalka u hiili baa la yiri hadduu gar daran yahay u hiili hadduu gar leeyahay u hiili. iyadana intaasaan kale ah gar iyo gardaro waxay tahay waa caddahay dadka loo hiiliyo. waxaad moodaa inay shafka dhulka ku dhufteen meelayan istaahilin tageen iska baaba'een damiirkii ka lumay. maxaan kuu sheegay marka halala hadla hala guubaabiyo oo meesha iska qaada hala yiraahdo wixii loo tari karana ha loo taro. waxaan kale oo halkan tacsi uga dirayaa dadkii ku dhintay Laascaanood iyo inta kale oo dhibaatadu haysato. waxaan leenahay arrintaa waa ka xunnahay. dad dalkoodii jooga ama deegaankoodii jooga ama iyagu go'aan gaaray inay wax samaystaan ama Soomaali noqdaan dad Soomaalidiidii inay ku duulaan oo xabad la dhacaan aad baan uga xunnaa. waana wax laga xumaado. waxaana leenahay arrintaasu meel kale ka socotaaya Somaliland ma aha. arrintaasu shirki Jabuuti annagoo daan runta sheegay shirki Jabuuti ka socotaa baan leenahay. shirki Jabuuti lagu tegay oo raysanka lagu sameeyay Ilaahay baa naga yaqaan. marka Ilaahay waxaanu ka barinay inuu ummadda xabadda ka qaboojo. dhacdooyinka hadda ugu dambeeyay oo hadda ka dhacayay Laascaanood oo Soomaali oo dhan oo xanuujisayna kolba hadda waa la igu soo leexiyay oo dowladda Puntland siyaasad bay ka leedahay. waxa hadda socdana saxaafadda ka sheegi maayo waa la arki doonaa insha Allah. dhammaan waxay ahayd runtii xasuuq dad Soomaaliyeed loo geystay oo loo aabayeelin. arrintaasna meel walba waa laga dhiidhiyay. insha Allah taala dhiigga daatana ma khasaari doono haddii Ilaahay idmo.